Dat we kunnen sporten en dat we gezond kunnen leven eigenlijk. Daar is het vandaag voor bedoeld. Ja, maar wat is het leuk daaraan? Kun je dat even uitleggen? Omdat je gezellig met elkaar kan voetballen. En ja, het is eenmaal leuk als je met elkaar kan voetballen. Ik vind het heel erg leuk, want we kunnen met elkaar sporten en het is heel gezellig en zo. We hebben lekker gevoetbald en het was leuk. Vooral, we hebben samen gespeeld. Ik zal tegen de andere kinderen zeggen dat ze dit ook heel vaak moeten doen. En ja, dat je lekker samen met anderen kunt spelen. Maanta waxaan isugu nimi in kinderen iyo ouders gezellig samen sporten sameeyaan. Leuke activiteiten. Voor de ouders is ook goed om te sporten. En leerlingen iyaguna samen spelen, samen sporten bij sameeyaan. Waa fiican tahay zeg maar. Meer dingen samen doen sameeyaan, zoals samen met z'n allen lekker eten, gezellig doen, zoals vandaag. Ja, vaker waan rabnaa. Ja. En ook meer meisjesactiviteiten ook aan sameeyaan. Niet alleen voet. Zoals ik weet niet, waxaan maskaxda ma ka laakiin leuke activiteit voor meisjes ook al. Inaan bedenken sameeyaan zelf meisjeska kadibna ay sameeyaan. Voetballen. Ja, respect voor elkaar. En sporten. Ja. 1 keer per week is beter om te doen. 1 keer per week. Als het niet haalbaar is, wat zou je... 1 keer per maand. Ja. Wat vind je leuk aan vandaag? Dat we gewoon samen konden spelen en zo. Ja, en dat we gewoon naar elkaar konden luisteren op wat we allemaal deden. En als we de bal naar elkaar moeten passen en zo. Ja, ik vind het heel leuk. Voetbal herinneren. Sahib yan. Dugsiga inga barto. Hoe ver jij? Meer dit was mee. caafimaadka dhinaca waxbarashada ee caafimaadka wuxuu ka mid yahay waxbarashada miskaxda ku korta caruurta maanta markay soo ciyaaraan banaanka oo bari wax baranayaan iyagoo ruustaqa oo maartay niyad hay baranayaan sida ogeed waa in xogaa loo sameeyo laakiin dib mar guri lagu hayo ama buug kaliya dul fadhiyaan waxay miskaxda way dib u noqonaysaa maartay marka cunugii horumar iyo horsaad ma yeelanaya marka labada dhinac waa inaan ka dhisno hadii laan caruurta wadankan guriga lagu hayo caafimaadkooda uma wanaagsana dhaqaadiirta iyo meelaha caafimaadka looga hadlaba mar walba waxay dadku la taliyaan in banaanka la geeyo caruurta ugu yaraan maalinkii ugu yaraan 30 daqiiqo inuu banaanka joogo markay ugu yartahay marka waxaan kula talinayaa in caruurta guriga laga soo saaro meelaha lagu ciyaar la geeyo oo meelaha sportiga la geeyo oo ka qayb qaataan sida sportiga meel waxa jira istiqna badan oo maartay sportiyada ah caruurta laga soo qori karo xataa waxa jira kuwa ka bixiya activity-ka noocyadaas oo kala ha ahaato dabaasha ha ahaato sportiga kubadda ha ahaato basketball-ka ha ahaato waxaa jira kuwa ka bixiya oo ku taageera waalidiinta aan awoodin marka waxaan kula talin lahaa inay informaasi raadsadaan sida ogeedna caruurta banaanka la geeyo caafimaadkana laga shaqeeyo in meeshan la keeno mar walba ay ku ciyaaraan ku farxaan ayagana
oo annagana aan fiirinayno ku sii farxayno say u ciyaarayaan say u ordayaan ujeedorto maanta waxa u sameyn caruurta ubadkeena u sameyn caruurteena u sameyn oo dhaqaaqan iyo sportiganeeto waxa loo sameeyay waa dartood maanta kale ciyaalka maanta marka sportkan aad u sameeynayeen ujeedadiina maxay ahayd wallaahi ujeedadina horta waxay number 1 qof walbo oo kamid ah caruurta Soomaaliyeed inay wada bartaan number 1 horta number 1 waxa waa inay wada bartaan number 2 waxa waa caafimaad dhaqaaq orod sida ogtaa wadankan waa wadan qabow dadka badana ma dhaqaaqa ma ordan sports lama sameeyo waxa ugu talagalay in caruurteen ay dhaqaaqaan ay activity ay sameeyaan ay dhaqaaqaan ay ordan ay fiiriyaan in waxa la yiraahdo sportska wax muhiim ah inuu yahay nolosha kamid ah saas darteed waxaan ilmaha tusinayna in sportska adduunka qaalinta koowaad in oo kamid yahay nolosha waatahay maxaad markaa kula talin lahayd waxa jira dadka mas'uul oo sportigan u qaabilsan oo waalidada marka ay dhaafto raba in ay iyagana wax ka qabtaan dadkaas oo kale iyaga wallahi waa waxa caaqibada hadda noo hortaagan waa intaas waxaan jeclaan lahayn in aan baaq u jeedino dadka oo magaciisi oo hay'adaha dadka caawino waad u jeedaa waxaan marina bisha oo October dhamaadkiisa November baa la yar galaya dhaqaaq iyo meel la aado oo meel lagu ciyaaro ma jiro laga maarmaan ما كبد عيارت إسبورتك وحن لنا هاي هأركان هأوجادن إن لو باهي دقدقة شغلة آدي أياد وما سنت أرتمر كره وحرب إن كاجا ما أدعي لي سيد مرة والباء مركي إن وح أكتيفيتيا والله سمينا يا مجتمع إجران أو ربضتك إن لو صوبان يقول لجارسيو فرينتا سنة تمادو أتكقيب قادته وأدتك صوبان دكتوا كاجا ما أدعي لنا يا marka kale barnaamijkan maanta halkan ka dhacay runtii waa barnaamij oo aad iyo aad u qurux badan waad arkaysaa in caruurtii Soomaalida ee halkan South Coast inay halkan isugu yimaadeen oo halkan ay kubad ku ciyaareen oo ay ku kulmeen iyadoo waliba waalidiintii runtii abayaalka hooyooyinka ay la socdaan barnaamijkan runtii waa barnaamij muhiim ah sababtoo wuxuu la xiriiraa in caruurta la suurta geliyo in sida ugu macquulsan hadii jeer ay banaanka tagaan ay ku soo ciyaaraan hadii hawada ay qurxan tahayna maba ku sii jira sababtoo ah inay ciyaaraan inay sportiga ciyaaraan oo maaragtay ii sheeg ay sameeyaan dhaqdhaqaaq waa qayb kamid ah caafimaadka marka in lagu dhiirigeliyo arrimaha noocaana in la abaabul aad iyo aad u fiican tahay waa tahay waalido badan ayaa aan fahansanayn ilmaha caafimaadkiisa in sportigu kow ka yahay iyaga maxaad kula talin lahayd horta sideedaba waxa muhiim ah magaalada Amsterdam in gaar ahaan waliba South Coast xafiiska caafimaadka dawladda hoos u qaabilsan hay'adda khayday waxay sameysay baaritaan la xiriira ilmaha iyo dadka xagga caafimaadka maaragtay ii sheeg culayska kale oo farqi waxaan yiraahin marka taa waxay soo baxday in xaafado kamid ah magaalada Amsterdam arinta ay ku badan tahay taana waxay keentay marka dadkii sidaad ogtaan oo farqi ama culayska waxa ka dhalan kara cudurro far badan marka in dadka lagu dhiirigeliyo marka koowaad inay cunto caafimaad leh cunaan iyo in sport sameeyaan marka arrimaha noocaas waxay noqon kartaa tusaalahan dadku markay cuntada soo gadanayaan oo kale inay ka fikiraan cuntada ay soo gadanayaan nooc ay tahay oo kale in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha faraadka ah oo kale hadii jeer khudradda iyo maaragtay ii sheeg inay dadku isticmaalaan oo kale iyo inay sport sameeyaan marka in magaalada Amsterdam khayday waxay jecel yihiin dadka inay ku dhiirigeliyaan marka runtii arrintan laftigeedu waa qayb kamid ah dhiirigelintii dadka lagu dhiirigelinayay
arrinta la xiriirta caafimaadkooda oo ah ofarka waqtiga ama culayska arrinta keenoo kale in lagu dhiirigeliyo inay dadka sport sameeyaan marka runtii waxaan aad ugu farxay sida waalidiinta ay uga warqabaan caruurtooda iyo waxyaabaha ay sameynayaan sababtoo ah in waalidka laftigooda ay ka warqabaan caruurtooda oo kaliya aan ahayn guriga laakiin waxbarashadii sportigii banaankii inay macallimiintii caawinayaan oo waalidkii iyo macallimiintii iskaashanayaan oo arrintan oo kale waxyaaba noocan ay sameynayaan waa arrin ku daysho mudan oo dadka xaafadaha kala degan sidoo kale laga rabo inay iyaguna sidaas isugu xirmaan oo ay wada shaqeeyaan waayo mar walba arrintani waa arrin u fiican caruurtooda iyo tarbiyadooda arrin u fiican waa